ida ayayba joogtaaba qof haweeney ah ayaa noqotay. iga raali ahaada haddii aan dhaho haweeney, waayo dumar inay heerkaasi ay gaarsiisan yihiin marnaba ma aan ogeyn, balse waxaas iyo wax ka sii badanna waa laga sugaa haddiiba ficilkan iyagu ay sameeyeen. islaantaba meeshay ku ooynaysaa ku barooranaysaa, waxay leedahay yaa saan yeel, gacan ka xadaran baa saan yeeshay, iyaga dembi ma laha, saan way ayay leedahay. waxaa la ogaaday eedadooda in ay sidaas yeeshay ayaa la ogaaday. walaalayaal, islaan wadaadkan uu qabi jiray, calafkooda uu dhammaaday ee mar hore kala tageen in ay ka dambaysay ayaa la ogaaday. haddaan si kale aan u dhaho, awlaaddiisa waaweyn hooyadood ayaa sidaas u gashay ilmaha yaryar. marka walaalayaal, adduunka doon ayaa la السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي في الله. balse aniga ma ihi marka hore wariye ma ihi, waxaan warkan idinku soo gudbinayaa waxa weeyaan, qof walba dhibaato ayuu sheeganayaa. dhibaatada aad sheeganaysid midaan aan kuu soo gudbinayo meesha ay la eg tahay, si aad markaas ka bacdii aad u quusato ama aad u degto, aad ma garanaysaa niyad ay kuugu degto. waayo rasuulku wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam, markasta qofka kaa sareeya fiirinin ee qofka kaa hooseeya fiir ayaa la yidhi. yacni markasta waxaa la rabaa qofka kaa masiibada badan oo maanta la joogo, waqtigan la joogo, inaad fiirisid waaye. haddii adiga awlaadaada ay agtaada ay joogaan oo haddana yacni ii sheeg adig sidaa rabtay adig aad ka weysan tahay, qof ayaaba maanta ilmihiisa uu la-yahay si foolxun ay ku dhinteen. waxaan hadda idiin soo gudbinayaa, aan rabaa inaan idinla wadaago barnaamijkii wax yar ka hor aan idiin soo dhigayay oo ahaa awlaaddii, ayaa haddeertaan waxaan idiin soo gudbinayaa. waa la ogaaday qofkii sidaas yeelay. awlaaddii abriyada ahaa, ceebka saliinta ahaa, ee dembi la-aanta ahaa, wiilkii iyo gabadhii qofkii xasday oo sidaas yeelay, qaabkii yacni waxoosnimadii ii sheeg adiga yeelay ayaan idiin soo gudbinayaa oo la helay. awlaaddii insha allah aabbahooda wuu ka soo gaaray, janaasadii waan ku tukanay, waana la qaaday, balse aad baa ay u foolxumaayeen oo loo foolxumeeyey. xitaa wiilka gacmaha xitaa waa laga jaray, dhunta xitaa waa laga gowracay. xasidnimo ayaa saas loo yeelay. haddaan idiin sheego qofka saas yeelay ma malaysan karaysaan, yacni ma xamili kartaan ee ii dulqaata. walaalayaal, alxamdulilah, horta ilmihii waa la soo aasay. dad dembi geystay ma ahayn iyaga. insha allah shafeeca allah uga dhigo ciddii ay ka geeriyoodeen. saan idiin sheegay walaalayaal, waxaa ilaan xaqa sidiisa ma qarsamabo. awlaaddii meedkooda lasoo qaaday, lasoo sheegay, lasoo qaaday, gurigooda la keenay, ciddii waxyeesho la weysanaa facebookga ayaa la dhigay in la la-yahay. laba sawir waaye, iyagu aad u qurux badan u labisan, sawir lasoo dhigay ayaa lagu baafinayay facebookga. bajaajlihii awlaadda waday ayaa aqoonsaday meesha lagu magacahayay tacsiyada taashe ayuu yimid. wuxuu dhahay awlaaddan shalay iyagoo oynaya oo islaanna ay leedahay eedadooda ayay magaranaysaa, guriga eedadooday diidooyin la leeyahay, oo gurigii uu geeyey ayaa wuxuu dhahay bajaajteedana saan ku qaaday, aniga ayaa magaranaysaa meel geeyo waay. islaantana waa aqaanaa, heblaaye hebel hebel ayaa la yidhaahdaa. okay, ciidanaa lagu daray, ii sheeg adiga askarta amaba magaranaysaa booliska ayaa dabagalay. wiilkii waa la waday, gurigiina geeyaa la dhahay. gurigii calaa ayi xaal mar lastixraacay, la dabagalay, waxaa la ogaaday qofkii awlaadda sidaas yeelay amaba ku taliyey in tacsiyada uu joogo, uu oynayo. tacsiyada ayayba joogtaaba qof haweeney ah ayaa noqotay. iga raali ahaada haddii aan dhaho haweeney, waayo dumar inay heerkaasi ay gaarsiisan yihiin marnaba ma aan ogeyn, balse waxaas iyo wax ka sii badanna waa laga sugaa haddiiba ficilkan iyagu ay sameeyeen. islaantaba meeshay ku ooynaysaa ku barooranaysaa, waxay leedahay yaa saan yeel, gacan ka xadaran baa saan yeeshay, iyaga dembi ma laha, saan way ayay leedahay.
waxaa la ogaaday eedadooda in ay sidaas yeeshay ayaa la ogaaday walaalayaal. islaan wadaadkan uu qabi jiray calafkooda uu dhammaaday ay mar hore kala tageen in ay ka dambaysay ayaa la ogaaday. haddaan si kale aan u dhaho awlaaddiisa waaweyn hooyadood ayaa sidaas u gashay ilmaha yaryar. marka walaalayaal adduunyo doon ayaa la taagan yahay. qofkii adduunyo wax uga dhiman yihiinow adiga xalkaaga og. maanta waa adduunyo berina waa aakhiro. ninkii maanta nool beri ma noolo. dulmiga iska ilaali. qof walbow dulmiga iska ilaali. ummadda ha dulminin. in yar magaranaysaay dhuuracasta in la mid ah oo dulmi ah ummadda ha u geysanin. hadda arrinkaas ayaa jiro. islaantii waa la qabtaa la leeyahay. nin kale ayaana qabo. waxaaba dhici kartoba in ay uur ay leedahay. xad laguma fulin karo haddii uur ay leedahay. haddii uur aysan lahayn xadkii ayaa lagu fulinayaa. sheekada yacni way sii cakirnaanaysaa. ilaahay ceebteena ma garanaysaa ha asturo. ilaahayna ma fashiliyo. arrinkaas ayaa dhacday. degdegaas kale ayaan haddana idin waday. wabillahi towfiiq. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي في الله. balse aniga ma ihi marka hore wariye ma ihi. waxaan warkan idinku soo gudbinayaa waxa weeyaan qof walba dhibaato ayuu sheeganayaa. dhibaatada aad sheeganaysid midaan aan kuu soo gudbinayo meesha ay la eg tahay si aad markaas ka bacdi aad u quusato ama aad u degto aad ma garanaysaa niyad ay kuugu degto. waayo rasuulku wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam markasta qofka kaa sareeya fiirinin ee qofka kaa hooseeya fiir ayaa la yidhi. yacni markasta waxaa la rabaa qofka kaa masiibada badan oo maanta la joogo waqtigan la joogo inaad fiirisid waaye. haddii adiga awlaadaada ay agtaada ay joogaan oo haddana yacni ii sheeg adig sidaa rabtay adig aad ka weysan tahay qof ayaaba maanta ilmihiisa uu la-yahay si foolxun ay ku dhinteen. waxaan hadda idiin soo gudbinayaa aan rabaa inaan idinla wadaago barnaamijkii wax yar ka hor aan idin soo dhigayay oo ahaa awlaaddii ayaa haddeertaan waxaan idin soo gudbinayaa. waa la ogaaday qofkii sidaas yeelay. awlaaddii abriyada ahaa ceebkasaliinta ahaa ee dembi la-aanta ahaa wiilkii iyo gabadhii qofkii xasday oo sidaas yeelay qaabkii yacni waxoosnimadii ii sheeg adiga yeelay ayaan idin soo gudbinayaa oo la helay. awlaaddii insha allah aabbahooda wuu ka soo gaaray. janaasadii waan ku tukanay waana la qaaday. balse aad baa ay u foolxumaayeen oo loo foolxumeeyey. xitaa wiilka gacmaha xitaa waa laga jaray. dhunta xitaa waa laga gowracay. xasidnimo ayaa saas loo yeelay. haddaan idiin sheego qofka saas yeelay ma malaysan karaysaan. yacni ma xamili kartaan ee ii dulqaata. walaalayaal alxamdulilah horta ilmihii waa la soo aasay. dad dembi geystay ma ahayn iyaga. insha allah shafeeca allah uga dhigo ciddii ay ka geeriyoodeen. saan idiin sheegay walaalayaal waxaa ilan xaqa sidiisa ma qarsamabo. awlaaddii meedkooda lasoo qaaday lasoo sheegay lasoo qaaday gurigooda la keenay ciddii waxyeesho la weysanaa facebookga ayaa la dhigay in la la-yahay. laba sawir waaye iyagoo aad u qurux badan u labisan sawir lasoo dhigay ayaa lagu baafinayay facebookga. bajaajlihii awlaadda waday ayaa aqoonsaday meesha lagu magacahayay tacsiyada taashe ayuu yimid. wuxuu dhahay awlaaddan shalay iyagoo oynaya oo islaanna ay leedahay eedadooda ayay ma garanaysaa guriga eedadooday diidooyin la leeyahay oo gurigii uu geeyey ayaa wuxuu dhahay bajaajteedana saan ku qaaday aniga ayaa ma garanaysaa meel geeyo waay. islaantana waa aqaanaa heblaaye hebel hebel ayaa la yidhaahdaa. okay ciidana lagu daray. ii sheeg adiga askarta amaba ma garanaysaa booliska ayaa dabagalay. wiilkii waa la waday gurigiina geeyaa la dhahay. gurigii calaa ayi xaal mar lastixraacay la dabagalay waxaa la ogaaday qofkii awlaadda sidaas yeelay amaba ku taliyey in tacsiyada uu joogo uu oynayo. tacsiyada ayayba joogtaaba qof haweeney ah ayaa noqotay.
iga raalli ahaada haddii aan dhaho haweeney, waayo dumar inay heerkaasi ay gaarsiisan yihiin marnaba ma aan ogeyn, balse waxaas iyo wax ka sii badanna waa laga sugaa haddiiba ficilkan iyagu ay sameeyeen. islaantaba meeshay ku ooynaysaa ku barooranaysaa, waxay leedahay yaa saan yeel, gacan ka hadaran baa saan yeeshay, iyaga dembi ma laha, saan way ayay leedahay. waxaa la ogaaday eedadooda in ay sidaas yeeshay ayaa la ogaaday walaalayaal. islaan wadaadkan uu qabi jiray, calafkooda uu dhammaaday, ay mar hore kala tageen, in ay ka dambaysay ayaa la ogaaday. haddaan si kale aan u dhaho, awlaaddiisa waaweyn hooyadood ayaa sidaas u gashay ilmaha yaryar. marka walaalayaal, adduunyo gadoon ayaa la taagan yahay. qofkii adduunyo wax uga dhiman yihiinow, adiga xaalkaaga og. maanta waa adduunyo, berina waa aakhiro. ninkii maanta nool beri ma noolo. dulmiga iska ilaali. qof walbow dulmiga iska ilaali. ummadda ha dulminin. in yar magaranaysaay dhuuracasta in la mid ah oo dulmi ah ummadda ha u geysanin. hadda arrinkaas ayaa jiro. islaantii waa la qabtaa la leeyahay, nin kale ayaana qabo. waxaaba dhici kartoba in ay uur ay leedahay, xad laguma fulin karo haddii uur ay leedahay. haddii uur aysan lahayn, xadkii ayaa lagu fulinayaa. sheekada yacni way sii cakirnaanaysaa. ilaahay ceebteena ma garanaysaa ha asturo, ilaahayna ma fashiliyo. arrinkaas ayaa dhacday. degdegaas kale ayaan haddana idin waday. wabilaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.